بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda reer Gabiley, khaasatan maamulka degmada Gabiley oo ugu horeeya maayirka Maxamed Amiin Cumar Cabdi iyo xogeyaha fulinta Cabdiraxmaan Nuur Abukar. Awalan waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin maadaama aad bixiseen lacagii deynka ahaa ee ummadda reer Gabiley ka maqnaa. waad ku mahadsantihiin arrinkaa waayo wax qabad ka weyn baan uma garanayo oo aan ahayn dadka xoogii lagu celiyay. waayo maanta ummadda reer Gabiley way dareemaysaa dhaqaalaha ka maqnaaya inta badan ka maqnaaya aad ku soo celiseen. waayo saddexdii maayir ee ugu dambeeyay deyntii ay wareejiyeen inaad maanta u babac dhigtaan oo tidhaahdeen nin walba wixiisii baan ku celinaynaa, waanu idinku mahadnaqaynaa. annaguna dadkaas waan ka mid ahayn ay deynku ka maqnaayeen, waanaan idinku ducaynaa insha allah inuu ilaahay idinku garab qabto hawshaa culus ee aad u diyaargaroodeen inaad bixisaan. cid kasta oo ay ka maqan tahayna waxaan leeyahay dee waa inaad maanta alxamdulilah tirahdaan lacagtiin idinka maqnayd ee muddadaa dhan aad daba socoteen cid idin siisay cid idin soo hadalkaadaba aad weydeen in maanta laydin yidhaahdo kaale qaata. waayo nin baan ka hayaa yidhi weligay ismaan lahayn dowladda hoose inta lagaaga yeedho loodhan kaale lacagtaadii kaale qaado iyo ninka ka haya dadkii deynku ka maqnaa ahaa iyadoo maanta weliba facekii labaad la qaato qoladii naga horreysana ay qaadatay annagoo ka mid ah kaalinta beder deyntii ka maqnayd waana la siiyey si fiicanna waana loo siiyey. subxaana watacaala u mahadinaynaa inaga dhiga dad muslimiina inagu manaystay amniga iyo nabadgelyada haysano ilahay baan mahad celinaynaa. marka labaad kulley waxaan u mahad celinaynaa maamulka dowladda hoose oo ugu horeeyo maayarka da'da yar master maxamed amiin cumar cabdi iyo xogeyaha dowladda hoose. kulley waxaan ka mid ahaa deyn yar kulahaa dowladda hoose oon badnayn iyadoona looga qaaday waxyaalo oo dan guud ahayd marka horeba muddana naga maqnayd waana siiyey waa noo fududeeyeen iyaga iyo ciddii kale garabka siisa aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa. wada saxaafadda waa mahadsantihiin. ummadda reer somaliland waxaan leenahay nabadgelyada ilaashada taasaa lagu gaaraya qofku inuu deyn bixiyo amba diinta kusoo qaato. aad iyo aad baa u mahadsantihin. salamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu. waxaan kaloo aan dadka xasuusinaya maalin kasta waxaan aragnaa iyadoo la leeyahay deyntii dadka lama sii annaga caddaynka ah $1 maanta lagu leeyahay dowladda hoose oo ganacsato kuleeda ma jirto waana la wada siiyey waana facekii labaad ee la siiyey ee markaa dadka diimaha la siiyey. aad iyo aadna waxaan ugu mahad celinayaa dhammaan qof kasta oo qayb qaatay inaan helno ilaa xildhibaanada maayirka Gabiley xogeyaha dowladda hoose. assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. maamulka degmada maayirka degmada iyo xildhibaanadii kale ee ka soo shaqeeyay aad bay u mahadsan yihiin. lacagtaana waan helay si fiican oo waa la noo siiyey. aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa guddidii ka soo shaqaysay golihii deegaankii ka soo shaqeeyey xukuumaddii ka soo shaqaysay dhammaan aad baan ugu mahadnaqanaa. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وانت قابش هاي صبحيه waxaan qaadanay nasoo sidii aan qaadanay 2012 iskuuladii waasoo ka mid ah iskuulka gaashaamo oo aan dhisay oo waqtigan aan sugeynay hantidii naga maqneyd maanta waa ilaahay mahadin mar hadii lana siiyey waxa mahadnaq qaale golihii deegaanka ee ka soo shaqeeyay iyo maayirka maxamed amiin cumar cabdi ayaa mahadnaq qaale sidaasaan maanta aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa oo maartay hawlo ku dhamaaday waanu ducaynana iskuuladaanu lacagtooda maanta qaadanay waxaan anigu dhisay guriga aqalka cad iskuulka ku yaala qandaraaskaa waxaana siiyey Axmed Samir intaa guddoomiye Axmed Samir iyo cabdi iyo Cumar Cabdi maxamed Cumar u dhaxaysay intaa guddoomiye u dhaxaysay midna nama siinin xuquuqdii aanu lahayn ee dhididka ahayd ee iskuullada ahayd. waxaana siiyey guddidaa maanta joogta iyo maayarka Gabiley jooga ayaa na siiyey. ilaahay baanu ugu mahadnaqanaa. maayarkaasi maxamed amiin cumar cabdi aad baanu ugu mahadnaqanaa iyo guddida ka soo shaqaysay xildhibaanada ka soo shaqeeyay xuquuqdaasi raagtay aad baan ugu dowladda hoose oo qayb baa la siiyey facekii koowaad. faceka labaadna waxaa la yidhi dib wiigan kadib baa la siinayaa. waxaan u mahadnaqanaa guddoomiyaha gobolka
iyo xogayaha golaha deegaanka dhammaantoodba iyo saxaafadda baa saxaafadda dhammaan waan salaamanaa maamulka gobolka degmada Gabiley gudoomiyaha maanta jooga Maxamed Amiin Cumar Cabdi ayaa la siiyey iyagana waxaan u dareynaa ammaan iyo mahad wanaagsan ilaahay cimrigooda ha dheereeyo waqtigoodana waqti fiican iyo wax qabad wanaagsan oo ummadda u soo kordhiyaan ha ka dhigo waxaan leenahay dadaal